السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ومد الصوماليات والسلام يا سلام الإسلام قد كسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين ونكسن قلب ونكسن أبين كي حاسة شيخ محمود الدورني waxaan idin sheegnay inuu qarankii Soomaaliyeed dhintay Allah u naxariisto qaranka Soomaaliyeed baan soo qorinay qaranka Soomaaliyeed marka Allah u naxariisto waaqac jiraanuga waa nasiib darro weyn saraakiishii Soomaaliyeed ee la soo tababaray ee darajada garbaha ku wadatay ee wadanka u dagaalameysay soo dhawaamay Cali Salaam ee wadanka u dagaalameysay maanta waa nasiib darro isagoo farmaajo 2 bilood sii maqnay inay qoxooti isu dhibaan nasiib darro weyn weeyaan farxaan qaroole caawa inuu Belgium joogo oo Belgium isu dhiibo oo dawaana waa socdaa nin kastoo sarkaal oo ciidamada Soomaaliya ka midna way isdhiibiyaa arrintaan inaad ogaataan waa waajib laakiin marka hore sheergareeya dhammaan sheergareeya isweydiiya haddaba saraakiishan Soomaaliyeed siyaasad kuma jirin wadankay difaacayaan uba xilka salow Cali Salaam wadankay difaacayaan shabaab bay la dagaalamayaan ammaanka magaalada gudaha ka shaqeynayaan qarannimada ilaalinayaan boodada ilaalinayaan haddaba waxaad isweydiisaan saraakiishii Soomaaliya oo lacag fara badan haysta oo malaayiin haysta oo nolol haysta intay ka cararaan wadanka inay isdhiibaan isweydiiya laba unbaa saraakiisha Soomaaliya maanta u bannaan wax kale oo bannaan ma jiraan laba arrin kaliya ayaa wiilka Soomaaliga ama nabadsugiga noqdo ama military noqdo ama boolis noqdo ama daraawiisha noqdo laba arrin kaliya oo bannaan show labada arrin oo bannaan waxa weeye sarkaalka Soomaaliya shabaabka inuu isu dhiibo iyo inuu wadamada reer galbeedka isu dhiibo because Africa hadduu isu dhiibo waa la Kenya dhalinyarada Soomaaliyeedna waxaan leenahay saraakiisha Muqdisho joogta iyo gobolada joogta ha isu dhiibin shabaab baan leenahay intaas ka caraysaan dam jidid yaa la isu dhiibin wadamada caalamka oo carara qof kastoo wadada marayso nala soo xidhiidha annaga idin kaxaana xitaa haddii ka kaarta kale la waayo waa la tariibinaya because haliyayaal aan ku dhaaranaa tiin haliyayaal waxa tiin aan ku dhaarano oo aanu jecelahay baa tiin qarannimo ayda ku jecelahay qabiil mayda ku jecelin waxaa idinku jecelahay shaqada waddanka u soo qabateen aad iyo aad baan uga xumahay maanta saaxiibka farxaan qaroole ama wiilkan adeerku ahaa inuu maanta qaxootiyay uu isdhiibo dowladda xune ka dhalatay Soomaaliya daciifnimadeeda iyo iskagnimadeeda iyo bahalnimadeeda ayaa keenaysa because farxaan qaroole isagoo wadanka jooga oo xasan aanu ahayn isagoo madaxweyne ahayn buu hanjabayay wuxuu lahaa farxaan qaroolow farxaan qaroolow wiilkaygiiow dhiiqa cagaa lagu geliyey weliba wuxuu la hadlayaa xasan sheekh maxamuud ducufnimo wuxuu ka qabo maskax xumo ka qabo qabiilkiisa inteena ku jirta inta awiye ku jirta kaliya la hadlaya farxaan soo dacshara sultaan soo shargareey salaam baad ka hadii shargareey ala shargareeyo marka ragii uu la hadlaya xasan banaanku joogo mucaarad buu ahaa banaanku taagnaa wuxuu lahaa shalay inta wiil hawiye ku jirta dawladdu la hadlayda ismalaayeen madaxweyne aad noqonaysaayo kuraas badishanaysaa markaa maydala tahay caqligiina rag u lahaayeen wiilkaygiiow farxaanow dhiiqa faraa lagu geliyey hal waddaa kuu furan saadiq joon waddadiisaa kuu furan oo qabiil noqo dadkuu lahaa ma nabadgelinaya markaa farxaanna waad maasan tahay baa leenahay isbadbaadi odawaana isbadbaadi baa leenahay sarkaal kastoo Soomaaliyeed iskaga tagaa leenahay badbaadaha kaasa meesha qaran ma jireen meesha qaran kama jiraane badbaada qaran ha keensadaan gurubkooda ha keensadaan ka taga masiibo qaran baa ka dhacday maanta masiibo qaran hadday saraakiisha ciidamada isu dhiibayaan wadamadii reer galbeedka masiiba ka jirta markaa kuwii dirbaanka tumanaya qaran isbedel baa nimid babalaha waa la arkayaa maanta wax kasta bannaan ku yaala wax kasta maanta bannaan ku yaala xaalkana waa la arkayaa magaalada Muqdisho loo saal weeyay saasay u gargarinaysaa shabaab malaayiin baa soo galaya ciidankii kala shaki baa yimid qabiil baa la dhaxgaliyay xildhibaanadii baa la weeraraya bal u fiirsada shalay kulana ninka la Cabdullaahi kulana waa baarlamaan nabadsugiid buu ahaa tuureero xasan sheekh maxamuud adeerkii wuxuu wataa tiginkiisa ciidankiisa uu tuureero wataa nin kastoo nabadsugiida ka soo haray Sambaloosha wata beegsi qabiil baana la Cabdullaahi kulana beegsi qabiil baa la beegsaday ogaada Sambaloosha waqtigii xasan ayaa gaadiidkiisii wata tuureero waqtigii sheekh shariif baa gaadiidkiisii ciidankiisii wata dagaal sokeeyana ka fursan maysa qaabka ku socdaan iyaga dhexdoodana way dagaalamay mid Soomaaliyeedna way dhacaysaa taa horta ogaada wayna soo dadajinayeen in badan baad maqli jirteen waxaa loo noqonayaa 19
maanta calaamadaha markaa ka muuqda anuu garan maayo dadku siay sheegayaan calaamadihii 19 xasan wadaa guryaha dirba loo dhacaya habeenkii loo dhacaya gabadh yaroo Facebook ka hadashay wiil yaroo Facebook ka hadlay ayaa guryaha loogu dhacaya hore hala sheekay muqdisho waxay noqotay jeew dusha ka bannaan anuu been meedin sheegayo duurka cad baa suuqa la isku baadhanaya duurka cad ayaa suuqa la isku baadhanaya duurka cad ya meeshii kasteed marta tuug baa taagan askartii weyn iyo jabeen nin wax qabanaya ma jiro because askari kasta wuxuu og yahay askari kasta waxa og yahay bari xilka in laga qaadayo oo la xulayo oo qof qaranka u shaqeynaya aanu joogin ay ogyiin marka dadkiina meesha ku jiro shargareey please gabadh iyo wiilba shargareey wariyada hala shargareey nacla inta joojaan hala shargareey gaarsiiya ummadda Soomaaliya gaarsiiya anigu maalintaan imanayo waddankan saddex laba bilood ee barka hore ama 3 bilood muddo laga joogo wax kasta amni baa jiray dariiqa wadada amaan baad ku maraysay qof qabiil ka sheekeynaa ma jirin qof qaxayaa ma jirin qof lacagtiisa kala baxayaa ma jirin dadku way deganaayeen turbaanka la wada tumayay wadooyinka nabadgelyo lagu marayay gabdhuhu intii labistaan bay suuqa dahabkooda la marayeen maanta laakiin waxaad arkaysaa dadkii oo qabiil soo kala qabiilkiiba cadaaday ile qabiilista waddankii yimid qabiilka wadada laga sheekeynaya waa waddanka gudihiisa askartii baad arkaysa oo meel tagan oo qabiil ka sheekeynaysa ya xaalku horta halkaasu maraya hambalya baan leenahay damjiid fadeexad inaad ka baxeen ood weligiin fadeexad ku jiraysaan anigu waan ogaa shalay bay ahayd markii imaaraadka inta looga yeedhay wasiir ku-xigeen loo soo diray wasiir ku-xigeen baa loo soo diray ninkii dhanaaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda loo soo diray aduu ay daruusa kuwa qabiilka aaminsan baa tahay dawlad meesha baa joogta damjiid baa dawladda argixisay ya wuu ku qanacsan yahay waxaan maqli jirnay isagoo xasan sheekh maxamuud oo leh dawladda farmaajo hankiina hoos u dhigano hadda hankii hoos u dhigi waa la hayaa hankii hoos u dhiguu sheegaya wata kuwa yaray qabiilka ku taageeraya tirada yaroona xasan sheekh xooma u qaban kartaan dawladda difaaci kartaanna ma jirto dawladdu waa argagixiso taliyin nabad sugidda mar hadduu argagixisan yahay oo nabad sugiddii maanta shabaab ay tahay iyadii baa shabaab ah hadduu nabad sugiddii qaranka maanta shabaab gacanta loo geliyo Kenya gacanta loo geliyay dee waad arkaysaan ya guuldaradana damjiid weligeed bay ahayd berri bay noqon oo soo dambay noqon oo guuldaradana way joogi qabyaaladdu cirkay maraysaa meel kastana waa la marayaa ceebna ma loo dhintay adduunkana ma ka dhacdo waxaynu arkaynay rooblo oo shalay intuu tagay airportka buskut qaabilaynu arkayna buskut ka soo qaaday oo safiir qaabilay oo way noo bilaabatay aynu arkaynay ya calool baahan markaa dawladdan calool baahanayaal waa baahanayaal ya ciidanka Soomaaliyana inay cararaan oo qaybna shabaab u galaan qaybna qabiilkooda u tagaan dee waajib bay ku too lama deynaya maadaama cadala kulana shalay kulana jis suuqa lagu weeraray suuqa bartigiisa lagu weeraray qof kasta xaq buu yeelanayaa laakiin waxaan leenahay ciidamadii saraakiisha nin kastoo reerkiinii iyo gobolkiinii tag haddii meeshii dawladeed ka jirin oo ay argagixisa qabsatay qof kastooba gobolkaas ka timid ee tuuladaas ka timid waa taqaanaa gobolkaaga taga laakiin shabaab yaa la isu dhiibin qofkii bixi karaya ee waddan ka bixi karaya waddan ka bax qofkii bixi karayow waddanka iskaga bax argagixisaa timiday niman xishoon baa yimid mooryaantii geela qaranka u qalanaysa baa waddankii maamulayso gacanta ugu jirta oo shabaab dhanka ah ya markaa wiilka wiilasheere dhalinyarta ku hameeyay shabaabka u galayow shabaab yaan loo gelin aniga waa iga talo shabaab waxba yaan loo gelin waa inaad tagtaan nin kastooba reerkiini tag qorigaaga iibso iska tag ya because haddaad shabaab u gasho waxaad faa'iiday ma jirto haddaad shabaab u gasho cadow baad ka tagtay cadow kalena waad u gashay ninkii u galaya dee isagu doorka qaadanaya un aday ku taalaa laakiin dhalinyarta Soomaaliyeed ee saraakiisha waxaan leeyahay waddanka iskaga baxa waddanka ka baxa meesha doonta iska dhiiba qof kastooba qabiil baad leedahay hadduu xasan qabyaalad la fadhiyo oo la beegsanayo nin kastoo qabiil baad leedahay kii waqooyiga ka yimid oo waqooyiga tag kii Puntland ka yimid oo Puntland tag kii Jubbaland ka yimid oo Jubbaland tag kii koonfur galbeed ka yimid oo meesha doon tag waxaan maqlaynaa oo la qarinayn
in la fariimo loo dirayo saraakiisha ciidamada fariimo loo dirayo oo nabadsuuda looga dirayo oo qof kastoo sarkaala la leeyahay farmaajo la soo shaqaysay war farmaajo dawlad buu maamulayay reer ma maamulay farmaajo qaran Soomaaliyeed buu maamulayay askarigana qaran baa leh farmaajo ma lahayn xasan oo markaad ka tagta qaran bay ahaanayeen askarigu isbedel ma samaynayo halkaas uu joogaya askarigu halkaas uu joogaya marka aniga maskaxdayda waxa ka digila ciidan baa lahayd farmaajo la soo shaqaysay war farmaajo wala la soo shaqeeyay oo xasan oo adaa la soo shaqeeyay oo Sheekh Shariif baa la shaqeeyay oo Cabdulqaasim baa la shaqeeyay qof kastoo wadanka madaxweyne ka noqdo waa la shaqeynaya laakiin aqliga caafimaadka qabaana siin maayo farmaajo la soo shaqaysay waa la idin leynaya oo waa la idin xidhaya oo xilkaada ka qaadaya ya aqliga noqon meesha marka dadka Soomaaliyeed taa inaad ogaataan weeyaan taa waa inaad ogaataan meesha dawladda kuma jirto waa la kala caranayaa nin kasta gurigiisa u tagaya beenna wallahi ma idin sheegay magaalada Muqdisho bartankeeda jooga waaqaca dhabta idin sheegaya saraakiisha ciidamadu labadaas qaybood bay noqdeen askarta intii joogtay qoriya haystaan waa meyd socda because sarkaalka shaqaysanaya dhaawaca 10 meelood dhaawac ka soo gaareen marka loo anjabo ee fariin loo soo diray farmaajo la diriraysay farmaajo taageeraysay oo anagu macaarad laga soo horjeeday waa lagu xilayaa baa leeyahay qof kasta fariintaas soo gaaraysa qof kasta oo magaalada Muqdisho jooga qabiilka doonta ka aw Soomaali intii farmaajo la soo shaqaysay qof kasta waxa la leeyahay ya waxa la leeyahay farmaajo la shaqaysay war farmaajo dawladda Soomaaliya loo doortay qaranka Soomaaliyeed baa loo doortay madaxweynaha ya haddii saas ku socotana Muqdisho waxay noqon doontaa ayaama maalin dhow waxaad arki doontaa Soomaaliyeed gacanta shabaab bay Muqdisho ku dhici doontaa shabaab oo magaalada Muqdisho istaa arki doontaan tala xumada egnimo kale talana male dhaqanna male damiir male ninkii shalay lahaa la kala aargoosan maayo isaga wax la yeelay ma jiro wuxuu doonu ku hadlayay Muqdisho joogay sarkaal ciidanka u shaqaynaya lagu qasbay inuu qabiil raaco xasan markaa dadkii qabiilka ka diiday isaga ay diiday ee reerka haweenimada ka diiday ee ka diiday macaaradnimada ee shabaabnimada ka diiday oo dhan baa la beegsanaya waaye bal dawladda cidda hogaaminaysa markaa garan laanahay dawladda waxa hogaamin doona nimankii badbaado qaran la baxay hawiyaha ayaa la rabaa in ciidanka gacanta loo geliyo xaalkuna saasuu noqonayaa dhalinyartan waxay meesha uga cararayaanna wax kala maa waa noocaas maanaya turtuur anu waan joogaya maxaa dhahay anu waan joogayaa ya marka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan leenahay qof kastoo baxayana waanu garab gelaynaa qof kastoo qurbaha inuu tagayo doonayana waanu gudbinaynaa wixii khibrada leenahay waanu sheegaynaa halku marayana waanu sheegaynaa mar hadday naftooda hal isku jirto oo dad damiir laawayaal ah oo weligood askari noqonin oon gaadh qabanin oo tuugaa oo qabiil ka buuxo oo cuqdad ka buuxda ciidanka ay beegsanayaan ciidanka Soomaaliyeedna waxaan leenahay raggiina saraakiishow isbadbaadi nin kastoo way isbadbaadi weerarka shalay kulana jiis lagu qaadayna waa baaq cad weeyaan weerarka kulana jiis lagu qaaday waa baaq cad oo la garanayo waa la garanaya halka loo socdaal idin sheegaya mar haddii kulana jiis la weeraray staafkiisii hubka laga dhigay way cad tahay ya way cad tahay nin iyaga ka fikir duwanaa meesha magaalada joogi karaan magaalada Muqdisho ma jiraan odawaana waa isdhiibi doonaa waa carari doonaa farxaan qaroolana maanta Yurub buu joogaa kolley waa isdhiibay warka intaa ku hayna waa isdhiibay ceebna maaha farxaan qaroole inuu wadanka intuu ka baxay isdhiibo because dad bini'aadmiya wadankii ma qabsanin daayeera wadankii qabsado gacanta ku haya daayeer ba wadankii maamulaya daayeer ya marka xaalku halkaasuu marayaa annaguna wixii jira inay soo gaadhsiino abdeyda waad arkaysaan baarlamaanada gobollada kale ka yimiday qaabka bilatal beesha daarood qaybo ka mid ah mareexaanka weliba mareexaankana waa taarget nin kastoo mareexaan oo baarlamaan oo halkaa joogaana waa taarget laakiin waxaan leenahay xasan sheekh maxamuudow xildhibaanadii joogay mucaaradka in cabdishakuur ka mid ahaa mahad salaad ka mid ahaa qoriyintay soo qaataan bay dhufaysyada gelayeen oo way dagaalamayeen laakiin xildhibaanka beesha daarood ee mareexaan maanta inaad tirahay staff ma wadan karayaan
wareegtaa waa silsilad ya marka casna way imanaysaa idina 6 bilood baad joogaysaa 6 bilood kabacdina madaxweyne cusub baa la dooranayaa taana idin ballan qaadaya garaaca wada waliba mareexaan yaa laga dhigana laaya daaroodka meeshii dala joogo dhan xabadda la dhaca yaa la kala reegin waxba mareexa waa nima daarood waxba yaa la galgalan yaa la galgalan laaya kuwa majarteega ku bilaabo kuwa ogaadeen ku bilaabo kuwa jidooqa ku bilaabo waxba daarood yaa la kala reebin laakiin mareexaan baan taarget ka dhiganaa afar wiil baan taarget ka dhiganaynaa oo afartii aanu aan jabi jiraan taarget ka dhiganaynaa soomaalinimana waan ka sheekaynaynaa ma dhacayse si fiican xasan sheekh maxamuud ay socdeen xasanow si fiican isu caddee banaanka la kaalay inadeer banaanka la kaalay wiilka mareexaan baan eryanayaa caqli ma noqonayso kanadidow ciyaartan ma garanaysa ciyaartii kilalka shanaad maaha inadeer ma garanaysa marka beesha mareexaan baarlamaankooda la beegsanayaa caqliga caafimaadka qaba xasan sheekh maxamuud oo mayna siinaysa kuwa majeerteen iyo kuwa jidaaqay joogo afka dhaadheer ka bilow meesha aad doonaysaana way soconaysaa sheekadana sharci bay noqonaysaa qofka baarlamaankaas si la doono in laga heli karayo laakiin kuwii qaranka soomaaliyeed weeraray ee qoryaha usoo qaday maha salaad ka mid yahay ayaa waddanka iska joogaya oo sidoodii ahaanay oon la taabanin nimankaa daarada ee mareexaana suuqaa lagu bahdilayaa oo ciidankaa lagala hadhayaa caqli ma noqonayso markaa wiilkan hawiyo banaanka iskaan waxbaa isqarina mareexaan waa daarood annaga idan leh banaanka wiilkan mareexaanee taarget ka dhiganaysaan ee dhulkiisii buu joogo oo baarlamaad xasaanada weyaan marka ayaan mid caqli gaabanida ka dhaadhicin nima waa daarood mareexaan ciyaartaada wadaanna way soconaysaa banaanka si fiican xasan sheekh maxamuud oo usoo baxo dagaalka inoo bilaaba ilmaare anugu dadkan ka qayb qaadan baan ahaye berigin waan yaraaye inoo bilaaba inoo bilaaba maasalaado bilaaba weliba kollejiis xabad ku dhufta nin kastoo daaradana xabad ku dhufta waxba yaan la warwareegay fulinimada iska daaya nimankiinaa dabjiida haween fulinimada iska daaya caadi waad ciilantii rag ciilan baa tihiin maasalad waa nin ciilan xasan sheekh maxamuudna waa nin ciilan waad ciilantii laakiin markaad ciilan tahay qofka xabad baa lagu dhuftaa gobonnimo waxba sida dacwada aa warwareegina waxba sida dacwada yaa loo warwareegina welijiina dabjidiid ku gabanaya xuquuqdaysanaya hawiyow war dadka xabadda la dhaca waxbana yaa la warwareegi laangaabnimado dhibaatadaasay leedahay ya war nin miyaad aragteen sambalooshaa joogay miyaad aragteen tuuryadoo nin wacaslaa joogay miyaad aragteen oo laga reebay staff laga reebay miyaad aragteen tuuryada waa nin wacaslaa nabad siguduu soo noqday ilaa beriga cabdilaahi gaadiidkiisa u wataa laangaabnimada markaa hawiyo iska daaya laangaabnimada ilmaareen iska daaya cuqdada iska dhaafa ya annagu waxbayda ka qaramayna waa idiin sheegaynaa taa waxa dheer ninkii in adeerkay deni quruxna waa warkiisa waad maqasheen shalay baarlamaanka ayuu shiriyey baarlamaanka ayuu shalay la hadlayey shalay deni qurux calaacal wuu calaacalay deni qurux wuxuu sheegay inuu ku khasaaray taageeradii qolyaha hawiyo taageerayey wuu ku khasaaray wuxuu sheegay inuu madaxweyne waayey wuxuu waayey inuu ra-iisul wasaare waayey wuxuu waayey lacag inuu waayey wuxuu sheegay inay isugu tageen hawiye oo ka codeeyeen buu sheegay waxaa kaluu sheegay in adeerkay deni qurux ya waxaa kaluu sheegay farmaajo wuxuu kula diriray in la tashi la-aan farmaajo waxaan kula diriray buu yidhi wuu ila tashan waayey xasan sheekh maxamuudna wadadiibuu maray buu yihi la tashlaanta jecliya sacaawa laga bilaabo waan ku taageerayaa deniyow hadduu ilaahay ku soo celiyey hadduu sixirkii kaa baxay sixirkii yaraa hadduu kaa baxayna digirtii madaxa lagugu shubay iyo buunkii hadduu kaa baxay deniyow walle waa ku taageeraya ciidankaagaana saacaddaa laga bilaabay deni qurux markaa boqorka daarood wuxuu yidhi deni boqorkii daarood wuxuu yidhi farmaajo waxaan kula diriray tala la-aan talada dowladda puntland waxba uu ka siin waayey tiimkan haystaa ee argagixis wallaahi been madiin sheegayo tiimkan haystaa ee dowladda qabsadeena waddadii farmaajo ay mareen waad garan kartaan marka xaaladdu halkay marayso mar hadduu boqorkii daarood sidaa leeyahay uu leeyahay farmaajo waxaan kula diriray buu xasan iyo tiimkiisu wadaan dam jidiid waad garan kartaan xaaladda waad iska garan kartaan ya xagga labaad odayga gudoomiyihii baarlamaankuna waxaa la sheegaya saacad ka hor inay naftu ka baxdaa la sheegaya anu ma caddayn karayo laakiin sida warbaahintu qoraya waxaa la sheegayay odayga inay sambabadii wadnu istaageen afkana ay kaga jirtay afka tuumbadii naqaskaa ku jirta tuumbadiina waa laga saaraan maqlayaa isna inuu dhintaa laga yaabaa
odaygaasna waxaa idiin sheegayaa abaarkii ummadda soomaaliyeed baa ku dhacay dhalinyartii soomaaliyeed ee baarlamaanka habaaraysay habaarkiinii waa la aqbalay aniga ii soo duceeya habaarkiinii waa la aqbalo waan arkayaaye mar hadduu aadan madooba ku jira maanta bayna almowt walxaya bayna almowt walxaya buu ku jiraa yah marka xaalku horta halkaasuu maraya deni quruxna waxaan leeyahay waan wada shaqaynaynaa maanta laga bilaabo haddaabad garatayna in laysuu kaa tegay oo hawiye kaa eexdeen oo codayntii lagu codayn lahaa daaroodnimo lagugu diiday oo aad daaroodnimada ku soo noqotay oo aad shalay calaacashay inaadeero aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay qaabka ay kuula dhaqmeen nimankii mooryaanta ee muqdisho fadhiyay 12 wiil madeerka aad baan uga xumahay laakiin markaagii hore aad qaldanayd markaagii hore ayaa deni quruxow inaad qaldantay oo adoo faras wataa dameera raacday faraskaagii baa dameera ku darsatay deniyow inaadeer yah adoo faras wadan kara oo awr wadan kara oo hala wadan karaa dameerada wax ku darsatay yah waana iska caadi ragguna dee intaba uu leeyahay markaa faraskii dameerka raacay baad noqotay deniyow inaadeer siday kuu galeenna waan soo dhawaynaynaa in faraskaagii dameer la daba inuu faraskaagii dameer wado waynu soo dhawaynaynaa nin kastoo ka carara soomaalinimada ka carara qarannimada ka cararana meesha lagu dhifto halkaa weyn markaa deni quruxow inaadeer lacagtii waad weyday lacagtii reer puntland waa la cunay inaad sharaftaya karaamadaadii waad cuntay madaxweynihii maabish ra-iisul wasaarihii maabish lacagtii puntland maabish sharaftaadii maabish yah markaa wax kastaa maabish markaa deni qurux qur-aan baa lagu akriyaya bismi illaahi araxmaani iraxiim digir bay ugu dareen macsar baan cabbay wuxuu ku leeyahay macsar yanun bay meel ku qaseen oo macsartii un baan cabbay mooyi addumiis boqorkii daarood ee deni in adeerka deni qurux hadday maskaxdii soo noqoto wuxuu ku leeyahay macsari bun yaroo la diboon baa madaxa laygaga shubayo brogram baaba igu xidhmay buu ku leeyahay farmaajo un la yidhaahda ya markaa dhalinyarta reer nabadii noole waxaan leenahay hala iska daayo ninka la yidhahdo hala daayo deni boqorka daarood ismaaciil hala iska daayo deni qurux saacaddaa laga bilaabo wuuna hogaaminayaa wuuna hogaaminaya markaa wiilashiina reer nabadii noole qaybo ka mid oo joojiya joojiya hala joojiyo laakiin intaan sheeko dhegaysanaya sheeko ka qurux badan weliga ma arag wuxuu ku leeyahay waxaa loo dhigayaa xaflad la yidhahdaa khasaare xaflad baa loo dhigayaa khasaare weligiin maad maqasheen ilaah baa idinku dhaariyey miyaad maqasheen xaflad la yidhaha waxaan maqli jiray xaflad la yidhaha bay xaflad waxaan maqli jiray dumarku marka la furo ay isku soo bandhigaan oo ay dadka isku tusaan oo leeyihiin macnaa waa lay furay tviyada ka daawada ay dhigtaan ayaan arki jiray laakiin deni ra-iisul wasaare maabish madaxweyne maabish 20 milyan maabish wax alla wax laayaa ma jiro indhaaday deni haddaba bahal baa loo dhigaya la yidhahda guuldaro xaflad baa loo dhigayaa guuldarro la yidhaha baa loo dhigaya guuldaro in adeerkay qaadhaankaana waan bixinaynaa xafladda loogu dhigaya waan bixinaynaa insha allah qaadhaankaa loogu dhigaya xafladdana waan bixinaynaa shaqaysana leenahay deniyow shaqayso ayaan leenahay adoo hooyadii federaalka adoo nin maxamuud saleebaana adoo boqorkii daarooda maanta in sidaa lagu gala aad baan uga xumahay aad baan inaadeer uga xumahay boqorkii daaroodo deni quruxow waleeya bilaa waa geedaday bal intaan ninka dhibkaa dheega waxay idhahdeen qoliya wiy marka la weydiiyey war ninkii ugu horreeyey buu ahay maxaad ugu shibo weydeen waxay idhahdeen annaga naguma jirina isbaaysiga beelaha hawiyaalna la yidhahdee isagaana soo dhex galayna gumeedku isagaana soo dhex galayoo isagaa noo yimbay annagu maanayha waa ninkii hubka keenaya laakiin waxaa ka maqan nimanka hawiye mucaaradka haddayna labada nin ee daarood ku dhex jirin dee qabiilin bay noqon lahaayeen banaadiro soo dhow qabiil hawiye la yidhaho dawladda weerarayan baad noqon lahaydeen laakiin guusha aan ku jabnay madoobiye farmaajoa keenay markaa boqorka daarooda waxaan leenahay boqortooyadu way jabtaay gobol jabinaade waad yar liixda wuna deniyow inaan maada jabin maanta jeebkaagi unbaa yar madhane waxay kaga daran
hanka wuxuu iska dhaadhiciyey madaxweynaha soomaaliya inuu yahay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya ayuu dani qurux isu diyaariyey inuu yahay ya bay cibaadada boqorkaa la daayo boqorka daaya maanta waan u baahnay ciidanka aan wadanaayo waa isaga boqorka daarood alla dani quruxow inaad gunbaa ku heshay nasabaad gobaad gunbaa ku heshay taa waxay kuleeyihin weligee bay kuleeyihin ogaadeen baa ma jeerteen siri ya ogaadeen baa ma jeerteen ka caqli badanaya weligee nama soo gelin bay kuleeyihin lakin maanta way dhacday ya kalluunkii badda ku jiray baa neefkeedo banaanka socdaa ka caqli badiyey ya waa sheekada mad waxay kuleeyihin kalluunkii badda ku jiray ayaan awr banaanka taagan baa ka caqli badiyey kuleeyihin markaa taana waa iska caadi waa kaftan kalluunku in laga badina waa caadi ya markaa saacaddaa laga bilaabo dani waa nabadee nolol weeyaan ya asxaabtii qaar gaalaa baa kusoo biiri jiray reer nabadee nolol kuwa diinta aan haysanin oo gaalaa ayaa soo islaami jiray qof kasta oo nabadee nolol soo dhex galana waa welcome baa lena waa la soo dhaweynayaa ya hogaamiyaha guud baan ka dhigana in kastoo waxba una qarin karin boqorka daarood waxma qarin karo oo hadday caawa gabadheeda sheekaystaan wuu sheegayaa berri hadduu gabadh caawa shukaanto u naaskeeda taabto aroorta wuxuu leeyahay ar boowe arnaas bela-ah ku yaalla boowe waxba qarin maayo ya ceebtiisu boqorka intaa weeyaan wax kaloo male boqorka ceebtiisu waa intaa ya markaa nin isweydiiya ya soo dhow sacdiga kusaabaya ina guaadow soo dhow ya arbowe ogaadeen ka caqli badi bowe arbowe ninkii geela watay ka caqli badi ya guul darada ku dhacday baan la yaabanahay aaranjaan dilba maanta wiil daaroodu iska dhigay wuxuu leeyahay daarood uma qalma xilkani madbaqa xasan sheekh maxamuud nin ku jiraa nama matelo dee wuu ku jiraa madbaqa xasan sheekh wiil ku jira baa yimid oo daarooda baa yimid oo laleeyahay annagana waxaana leeyahay weligii qaxootibaad soomaaliya ka ahaydeen haddaad absama tihiin qaxootibaad ka ahaydeen maanta magac baad idin yaallay baa nala leeyahay waa wiil madbaqa xasan sheekh maxamuud ku jira oo baranada googoynaya weyaan ya marka caalku halkaas iska maray marka doqonkii ilkaa dheereen waxaa laleeyahay hadee waddanka adaa maamulaa laleeyahay kaaga helinaynan gumeedadii ma jeerteen ilkaa dhaadheere kaaga helinay maxamuud saleebaane hore u soc baa leeyahay ya marka maanta qolyihi reer beriga u daran way soo wacayaan ardeni arbowe ogaadeen kaa badi bowe arbowe ninkii geela wate arbowe iskuol ma tegin bowe qalin ma qaadan bowe ya ya jambalkaana niman baxa tuuraya awiyaha soo tuuraya la socdo leeyahay ogaadeen siyaasad beri ya marka xaalka muqdisho halkaasuu marayaa deriyowna waxaan leenahay saraakiisha ka cararaysa muqdisho inaad arrinta tolnimo muujiso adeerkii axmed madoobe ma hayn karayo madoobe wuu soo dhiibayae deriyow bal maanta intaad gol iska dhigteen adoo nin maxamuud saleebaana iska dhigto cusmaan maxamuud oo boqortooyo daarooda dadkaa qaabil dadka intaad qaabisho saraakiisha shabaabka isu dhiibaysa iyo ciidanka jumhuuriyadda federaalka ee shabaabka isu dhiibaya badbaadi deriyow ya laakiin soomaaliye waxaa nasiib daraa 2 bilood farmaajo ma sii maqnaa 2 bilood ciidankiina labada arrimood baa hortaala ciidankii soomaaliya khaasatan ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka gorgor iyo ciidanka harimacad taana calaamadaha idinku muujinaya markhaatiga waxa weeyaan xasan sheekh maxamed wuxuu beegsanayay saraakiisha waa la beegsanayay farxaan qaroole maadaamuu maanta belgiga iyo netherland midbuu iska dhiibay qaxooti isu dhiibay maxaad u malaynaysaan ilaa farxaan qaroole baayima haynin oo lacag laanimaan oo lacag buu qaadanaya malaayiin dollar buu haystay maxaa kalifay sarkaalkii ciidamada gobolka banaadir inuu maanta isdhiibo oo qaxootinimo asylum isu dhiibo maxaa keenaya suudiya waxaa keenaya kololojiis baad arkaysaan qaabka loola dhaqmayo shabaab baa waddankii gacanta u gala nabadsuguudi shabaab baa gacanta ugu jirtaa shabaab baa raadinayay ya markaa nin kastoo dhalinyarta soomaaliyeed oo sarkaal soo noqday in la diluu ka cararaya
يا يا ورا وانا سيب ترو مرقع نميكي تلباقة تمري يسبدل بايمي يسبدل بايمي الشباب ودك عنده ولقوا انا بسويت الشباب بايست دولة شباب دلت هذا بالسويدية مقصر الشباب باقي بصري إذا كان الشباب بيسودي بيان شباب الله وصي شباب الله دعتين بعيدا وبضم باكب عاوز إلا شباب يسودي بي because انت يدم شيء كدري لاين شباب كسودي باكنا عليه عبادة ترين ودي لي يا نرجع ترجع لو اسكت على سواء عادي وايدين كده ترجع له بعبادة أنا لا يدبع مرس أنا لا يدبع مرس طلالي ولا ديدي قرن قصوكو فعنا ولا ديدي يا وهذا ترجع حوالين صارين ساعة ساعة مرات عيدك كيف الشباب السوديين مع ثلاثة على ثلاثين شهادة الشباب السوديين على هذا دليلي waddankii waad arkaysaan xaaladiisu halkay marayso maalintii sheekh shariif joogay ee muqdisho shabaabku ay joogeen gudaha muqdisho ay joogeen maanta ayay ka xun tahay maalintaas rag shaqaysanaya oo dagaalamaya ayaa joogay sheekh shariif ilaa xafido oo dagaalamaya oo diyaaroobu ahaa laakiin maanta rag la dirirayaana ma joogaan hay-addii ugu sarraysay ee la diriraysay shabaabka la diriraysay ajnabigana shabaab baa gacanta ku haya maad salaado xubin sanaa baa gacanta ku haya xaaladda waad arkaysaan guddoomiyihii baarlamaanku uu dhintay iyo ma dhiman labadaba waa laleeyahay waxaa laleeyahay tuubooyinkii naqaska siinaya hawada mar dhaweyd baa laga saaray baa laleeyahay si uu dee u dhamaato isagana inkaartii baa ku dhacday inkaartii ummadda soomaaliyeed iyo habaarkii reer nabadooda ay habaarayeen ayaa ku dhacday dad badanna habaarkaasi wuu ku dhacayaa because ummad soomaaliyeed baa habaaraysa oo soomaneed ya ma maqashaan aad iyo aad baa in salaamaya sii sheergareeya dhalinyarta soomaaliyeedna waxaan leenahay shabaab yaan la isu dhiibin xasan waa cadowullah maha salaadna waa cadowullah waan ognahay laakiin meelo badan oo isu dhiibtaan baa jirta baasaboorradooda haysataan yurub iyo maraykan gala haddaad meel isu dhiibaysaan ciidankana waxaan leeyahay dee ciidankan laleeyahay shabaab bay u gelayaan oo maha salaadiya nabad sugidda u wahanjabeysa ciidanka laleeyahay ee diyaarka oo shabaab inay isu dhiibaanna waxaan leenahay wiil kastoo soomaaliyeed oo muqdisho joogow haddaad ka cabsata maha salaada nabad sugidda in lagugu dilo reerkiini tag xasan markaa qabiil ciidan qabiil ah inuu samaysto inuu shabaab u dhiibo labadaa mid bay noqonaysaa hadduu xaalku saa kusii noqdo aan arkayo magaalada muqdisho ku arkayo weegay nagu soo socda shabaab baa la wareegi doonaa xaalku siduu ku socdo shabaab baa waddanka la wareegi doonaa beenna soomaaliya maaha ilaahayna soomaaliya ha badbaadiyo farmaajada ka bax baan leenahay meesha intaan dhibaata dhicin weerar ma dhammaanaye ka tag baan leenahay war soo dhow maraya soo dhawaada alay slam ya warwaanku salaamay galmudug waddankii markaas soomaaliyeed waa gacan galay ogaada dam jadiid laga wada carar ya saraakiishii soomaaliya way soo dhiibayaan ciidamadii qayb baa shabaab isu dhiibaya waad arkaysaan ya ma maqlaysaan isagiina imaaraad baa looga yeedho yuhuudda heshiis la gal baa laleeyahay warqadda heshiis la gal waa ciidankiisiina shabaab bay isu wada dhiibayaan saraakiishii ciidamada qurbe ay iska wada dhiibayaan farxaan qaroole anaa idin caddaynayo isdhiibay anaa idin caddaynaya odawaana waa isdhiibayaa saraakiisha soomaaliya o dhanna way is wada dhiibayaan berri ama saa dambe dhegaysta meesha mar hadduu iska dhiibay farxaan qaroole ka cararay waxaad ogaataan xasan sheekh maxamuud hawiyana naf uma hayo daaroodna naf uma hayo because farxaan qaroole waa nin hawiyaa waa nin abargiira waa nin saleemaana waa nin reer muusa waay buu tegayaa bal isweydiiya markaa xasan ciduu kala jecelaya ma jirto waa la baabiinayaa waa la meesha dabkaa la saarayaa markaa farxaan qaroole maadaamuu waddanka ka baxay sababtu uga baxay isweydiiya isagoo xasan madaxweynaha ku waajabayay
saraakiishana waxaan leenahay askariga xagtareer kastooba la xisaabtan damjiidi baa la xisaabtamaya askari kastoo ciidamada soomaaliya ka midana warqad baa usoo dhacda ama maseej baa usoo dhacaya loogu hanjabayo oo laleeyahy waa lagu dilayaa farmaajo hadda soo shaqaysay qoorqoor baa taageeri jirtay bidhi shaqada la leeyahay ya lafti gareen baa taageeri jirtay sheekadaasa socota aad iyo aad baa in salaamaya asxaabiyabenes sii sheergareeya brograamkani waa mid muhiima sheergareeya gaadhsiiya ummadda soomaaliyeed asalaamu calaykum waraxmatullah farciya soo dhawan absalow jidkii afghanistan way dhaaftay afghanistan dad taarget la bay ahaayeen yah meesha inay madaxtooyada amisom baa ku dee mar hadday ciidankii waddanka ilaalinayay la burburinayo oo saraakiishii la laynayo oo jeelka qayb la gelinayo oo baarlamaankii la weeranayo waxa halkuwaas taas qof ka fikir duwan xasan sheekh maxamuud magaalada ma joogayo ama maasalaad ka fikir duwani magaalada muqdisho ma joogayo ogaada soomaaliya sarkaal kastana waa la wacayaa meeshiisaa fariin loo gudbinayaa warqadla slow ciidankana waxaan leenahay saa sameeya saraakiisha waaweyn nin kastooba aayar iskaga baxa waddadaad maraysa waan kuu sheegaynaa halkaad qurbaha maraysa aan kuu sheegaynaa halka lagu marinaya annaga kuu sheegaynaa xasan sheekh maxamuud iyo gruubkiisuna sida 6 bilood baan u qabtay 6 bilood ayaan u qabtay marka la arkay in madaxtooyada lagu soo ururay oo ay muqdisho shabaabku gacanta u gashay waa la garanayaa soo dhow may aad baan salaamay si shaqeeya